السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan la wadaago arrin yar oo maaragtay mobilkaaga runtii wax weyn ka caawinaysa sida aad u soo saari lahayd lock screen-ka dushiisa qoraal yar ama text ama lambarkaaga camal si mobilkaaga hadduu kaa lumo lagula soo xiriiro marka si aad u samaysid setting-ka mobilkaaga ayaa soo furanaysaa kadibna lock screen meeshaas ku qoran tahay ayaa tagaysaa kadib lock screen markaad tagtid meeshaan contact information meeshaan ku qoran tahay ku dhifo haddaba meeshaan waa meeshii aad ku buuxi lahayd qoraalada ama waxyaabahaas meeshaan qoraalka aad geliso wuxuu ka soo muuqanaya ama lambarka oo kaleeto wuxuu ka soo muuqanaya banaanka lock screen-ka taleefanka markuu xiran yahay lock gariisan yahay hadda tusaale waxaan ku qorayaa isagoo oo kaleeto kadibna lambaraan raacinaya lambarkaas iyo waxa meeshaan geliya markay banaanka lock screen-ka ay ka soo muuqanayaan marka gelisid dhan ayaa leedahay oo okay meesha dhan ay ku dhifanaysaa kadib markeeto hadda waa ka soo baxaya marka ka soo baxo mobilka waa loo ku xiraafiso dimina marka loo ku xirtay mobilkiisaan warkaas hadda meeshaan taariikhda ujeeda soo waciya lambarkii meeshaan ujeeda mobilkan waa loo gariisan yahay tusaale waxay ka caawinaysaa haddii مثلا موبيلك أو كالم وكالياتو أو قف أو أركو تلفونكاga meeshan wuxuu uga soo baxayso isagoo kaleeto marka waa arrin wanaagsan runtii hadda rabtid wax kaleeto qoraal badan aad ku dari kartaa isla meeshii aad tagaysaa meeshan contact information inta ay ahayd kadib hadda waxaan ku darayaa مثلا fadlan oo kale ku dara fadlan isoo waa lambarkiina oo kaasa kadibna okay aad leedahay marka easy meeshii ka soo muuqanaya mobilkaagii oo lock screen-ka hoostiisa meeshaan markii fadlan ta ku cusubtahay YouTube-keena subscribe